another one tii tacda another one tii tacda another one tii tacda xaalka saan buu marayaa heer gabdhihii Soomaaliyeed xuquuqdooda lagu tunto sidii la rabo laga yeesho sharafka laga qaaday marayaan waxaa arkaysa dad online 24/7 they don't like none they don't share none comment waxba kama sameeyaan kuwaas waa kuwa ay tiri hiban nuura mana dhiman mana noolo billaah calayk السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو نقد وناكسن وانيقو اتي تعدى يوتيوب كاداون سانو اتي تعجن ميلو بادوني ذكي جوكتان يزي والبو موقال كيغي دين سو غاري دون بوحايد الله وين وناكسن هدي ادكو حسوب تا يوتيوب channel كيغا ما يكو تابو قشدا دي كوادنا وحان كولايا بليز سبسكرايب سال channel قنبلالكم فرشار ديوكم انت اللو ذاك سحابتا انتا صدرنا ما وعلى عقوة بلاش اسكو سو نقد وناكسن يو فيديو عصب وحيصة قارة له أصحاب قيمة يقدرون تجمدن وحن ربينا الساحضة نين صاحب كيا أولي راد جمال يا حيصة دري فيديو كان هرددا عن اسكو ديارنا يعني كسو كعي وحير فيديو كان بالعرق مركان فيديو كاركي أدبان أولي بينين كان دور جيرو هوري أيان أركي بلس ولي جاي رياكشن كمان بحنين sababtoo ah waa waxyaalo aanan akhlaaqda iyo Soomaalinimada iyo diiniyan intaba aanan ku wanaagsaneyn balse weligay maadaama aan ka hadlin maanta tii ugu darneed oo la yaab ka lahayd ayuu la yimid kuwii hore waxay aad gabdhihii indhaha ay soo xiran jireen maanta mid daayiriya shamis ah oo orax soo baxday oo kale si aan maro loogu dadi karin oo banaanka la yimid wuxuuna weydiinayaa su'aalihii foolxumada badnaa ee arxandarada ahaa ee aanan loo quurin gabdhaha Soomaaliyeed ninkan waa nin bulshada problem aad ku haya wuxuu joogaa sidaan jeclahay magaalada Muqdisho haddii ay dowladda jirto haddii ay nidaam iyo dastuur iyo guddi anshax jiro dowladdu waa inay ninkani qabataa oo xabsiga u taxawdaa si sharciga loo horgeeyo sababtoo ah wuxuu ku xadgudbay xuquuqdii Soomaalinimo tii diinta Islaamka iyo tii hablaha Soomaaliyeed dhammaan asoo raadsanaya shilimaan yaryar uu rabo inuu ka helo YouTube-ka sababtoo ah YouTube reaction la bixiyaa waa la hadlaa sheekooyin xiisalaha la keenaa balse in maalin walba uu gabdhaha inta mikrofon la soo istaagay kaamiro inuu su'aal khaldan oo aad iyo aad waji gabax uga gabdhaha Soomaaliyeed oo la hor yimaado wax la qaadan kara ma ahan waa in cid kasta oo aragta fiidiyogan ay jawaab ku habboon ka bixisaa ninkanna la tusaa waxa uu geystay ciqaabteeda sababtoo ah sidaan looma dul qaadan karo gabdhii Soomaaliyeedna ma aqaan gabadhan inta kaamira soo fariisiyo su'aalahan la weydiinayo ayadoo ku qanacsan sabahay ugu jawaabaysana ma garan karo ma dhibaato hoosaa jirto oo micnaha gabadha lagu heesto rikaatooyin ma fiidiyooyo hore loogu qabtay oo live ayadoo qaabana laga haayo loogu hanjabayo miyaa jira haddii ay barnaamijyadan sameey waayaan ma waxyaalo kale loo adeegsadaa in gabar dhalinyaro ah oo qurux badan la soo fariisiyo video camera lagana duubo waxyaalahan foosho xun oo aanan maanka iyo damiirka Soomaalinimada aanan qaadan karin in maalin walba uu ninkan nolol hor yimaado asoo ku tacdinayo ku takrifalayo gabdhaha Soomaaliyeed ma la qaadan karo marka cid kastoo khuseysana ninkan waxaan leeyahay sharciga ha la horgeeyo wuxuu kasbado na halugu abaalmariyo marka aniga waaba yaabay adiguna isku day inaad aragto fiidiyogan jawaabtaada ku habboonna aad ka bixisay fikirkaaga ku aadan ninka kan ee hablaha Soomaaliyeed maalin walba tacadiga iyo foolxumada iyo ceebta la taagan aan isla aragno horta fiidiyoga markaas kadib arki doontaan wax walba
kulanti waan daawadayaal waa Asad Madrid maantana sida wada jeedaan waxaan la joogto qof aad u shidan maantana waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo su'aashaas waxaa laga keenay jaamacadda Macquarie University waa su'aashii oo mooska waxaana ku isticmaalaa anaga ahaan inuu cuntooyin kala duwan ku cunno oo nafaqooyin gaar oo noo leeyahay sida cuntooyinka uu isticmaalo mooska marka faahfaahin oo buuxda waxaan naga sii doonto qoftan waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo soo dhawow ninka wuxuu leeyahay magacayga waxaa la yiraahdaa Asad Madrid su'aashan waxaa laga keenay jaamacadda Macquarie saas waxay qaabilsan tahay su'aashan mooska gabadhaana ayaan rabaa inaan su'aasha weydiiyo marka sidoo uu weydiinayo aan aragno bal horta aan aragno صح ديار موتنا سؤال كويدي سؤاشان وسؤاشي او موسكا ها ويدي كرتا سؤال اوكي انا كموسكا waxaa u isticmaalnaa cuntooyin kala duwan oo ku cunno hablahan qaabka mooska ee u isticmaalaan qal noo faahfaahay صح anaga cuntooyinka waa ku cunaa cuntooyinka ku socodsiina nafaqoole anaga si kalena waa u isticmaalaa faa'iidooyinka loo nooleeyahay صح maxaa kamid sida kala u isticmaasho anaga waxaa u isticmaalnaa xaafadda hoose waxaan aad u jecelnaa mooska ciirinka waa hadaana gabdhaha mooska waxaa la sheegay in oo gabdhooyin badan ee isbitaal ay u jiifeen oo kuwa ku jabay maxaa ka jira intaas صح waay laakiin moos oo sifa ciirin oo la isticmaalay mo gabdhaas ma u sheegaa mooska ciirinka la isticmaalaa xaafadaha hoose ma fahanteen marka moos oo jilicsan isku isticmaalna hadda isbitaalka Digfeer waa buuxa isbitaalada oo isbitaal Madiino marka waxa dhilaa gabdhaas u sheegaa oo mooska isticmaalaa moos ciirin soo gata siina qasaaro oo la kulmin wuxuu yiri gabadhan ayaa su'aal weydiinaa su'aal ma ku weydii karaa haa dhaad way weydiin kartaa wuxuu yiri su'aashan waa su'aashii mooska wuxuu yiri mooska waxaan ognahay inuu faa'iidooyin badan uu leeyahay saan qababac gabadhi ayaa tiri haa faa'iidooyin uu leeyahay anaguna faa'iido gaar ah inuu leeyahay waliba xaafadda hoosan ayaan u isticmaalnaa oo wuxuu yiri gabdho badan baa isbitaalka jiifo oo mooskan ayaa ku jabay markaas waxay tiri haa khaladka ayaga iskale mooska ceeriinka loo baahan yahay inay isticmaalaan ayaguna waxay isticmaalaan mooska bisela marka waxaan ugu talinayaa inay soo gataan mooska ceeriinka si ay khasaaro ay ula kulmin ilaahay baa idinku dhaariye ninka kan inuu banaanka ku sii neefsado yaa oo banaanka xornimo uu ku joogo miyuu mudan yahay mise ninkan in la qabto waaye in la qabto dee aan ku sii socono bal aan arka kilibkan kalena adii isku dayda inaa moos isticmaasho ama ciirin ahaado ama jileec ahaado ma anima isku dayin laakiin hadda rabaa inaa isku daymo hadda ku tali jiray xaafadda hoose gabdhaha Soomaali aad u duqeeyeen maxaa saameynta dhibaatadaas maxaa keenay saameyntaas walaa wax kale ma keenin wiilasha laga wahsanaa kadib booska waxaa lagu mudala moos ma oo marka mooska wax talbadan aan ka nooleeyahay saaida u jecelnahay gabdhaha saaida u isticmaalayaan marka idinka hadda ka maseersantiin waa noo sheegi kartaan oo mooskano marka xilli walba ma isticmaashin ama xilli oo gooni ah oo mooska ni leeyahay ma anaka xilli kasta ma isticmaal xilliga anaka u baahan oo waqtigeena isticmaaleena xaafadda hoose saaida u duqeysay ma is dhihi karaa may walaa wax ma ka taraay ani waxa isleeyahay buu u fiican yahay bumo gabdho badan waa khumayo kurugta warniyo ninkan oo kala Soomaali u dhashay ninkan oo kala Soomaali kula sheeganay ilaah baa idinku dhaariye ninkan walaa maanta duu agtay joogla dhigiisa cabilaay mala dukato waxaan oo kala riyaa raadun saa laguma joogay war ninkan dowladda Soomaaliya waa inay tilaabo ku habboon ka qaadaa war ninkan sidoo gabadha ula dhaqmay Soomaalida u jeed war ninkan sidoo gabadha u fadeexeysanayo oo sharafta ugu qaadayo yaa waa in la baaraa ninka kan iyo Xasan Toob waa in la baaraa oy maraan baaritaan sax ah waa haddii ay dowlad jirto waa in dad labadan nin Xasan Toob iyo ninkan Asad Madrid la yiraahdo dacwad ka dhan ah yaa xuquuqda hablaha lagu soo oogaa sababtoo ah waxay ku xadgudbaan maalin walbo gabdheeni Soomaaliyeed ay ku xadgudbaan haddii aanan ka dhiidhinin waxyaalo tan ka waaweyn bay keenayaan waxyaalo tan ka waaweyn bay soo wadaan waxaasna wax la qaadan kara ma ahan war wax laga yeeli kara ma aha kuwan
وكوان نوعي يا وركوان شريعة وحي كقبتو وإلا مرسيان إن كان والله بالله إطلع دي أنا دولد وإلا حسابت من نينكا كان يا إنان أنيقا أقول تغاي ماشيس أن عيجيان كو دلا والله عيجي يا مالو والبو أيا واحد لي ما دا قبر انت جعشايا لغا تابتا انت ساس لغا يلا نوعا وكل والله عيجيان كو دلا عيجيان كو ما حمر يا بختي باتا بختي يا مالين والبو قبر مساكينة سولو قونيسا يا دكان وإن لبارا قبلهنا إلا هيهير كان سببها يوكو أقلادا إني أسميان وإن لبارا وإن دكان لولكرا محكمة الفيديو كان انتانا كسو قبينا هديربتين لايك سارنا ديرتين شيرا دينا مفانتين ورسان لغوما بجوي كر يوتيوب كان حتى اسكدافس واي صوبتا وحيالان لوما دول قادا كر خوف ديق له وراديقنا ما ركتي يا هدي الدولد وحكا خوويسو اني هادي سومالي واسكو اركي دولنا هدي انت عدا حنينا اني هادي سومالي دا اسكور ايمانو يا هدي آدم ديقو كسينين تي تعدب لي منو هدا ديقو عبين ديقو